kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo goorahan oo kala warqaad aad kala socotaan qodobada maanta aynu idin hayno waxa ugu waaweyn amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo xal loo helay iyo dawladda Qatar oo maalgelinaysa qorshe cusub oo amni ilaalinta dalka ah warar dheeraad ayaan idinkaga haynaa qaabka loo xaqiijinayo amniga Muqdisho dawladda Soomaaliya oo looga yeeray shir heerkiisu sareeyo oo lagu qabanayo dalka Kenya miyay suurtagal tahay shirkaasi Soomaaliya inay ka baaqsato xukuumadda Soomaaliya oo saacadii la soo dhaafay xabsiga dhigtay saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale sababta loo xiray iyo xilalka ay hayaan ayaanu idila wadaagi doonaa qodobada kale waxa kamid ah ra'iisul wasaare Khayre oo qorshaysan filayn ahlu sunna ka bilaabay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxa uu yahay qorshahaasi ayaanu idin haynaa xukuumadda Muuse Biixi ee Somaliland cambaarayntii ugu adkeedayay la kulmaysaa kadib kalsooni darro iyo dulqaad la'aan lagu eedeeyay dawladda federaalka oo 30 sano kadib ku guuleysatay hirgelinta mid kamid ah qorshayaasha lagu xoojinayo dawladnimada Soomaaliya u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo goor aad la socota markale wacan wanaagsan waa Khamiis 4 bisha 7 ee July sanada 2019 hadaynu ku bilowno barnaamijka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xal u heshay ammaanka magaalada Muqdisho oo xiliyadii dambe ahaa mid loo taag waayay booliska Soomaaliya ayaa loo ogolaaday inay qortaan dhalinyaro cusub oo jaamiciyiin ah iyo kuwa ka soo baxay dugsiyada sare kuwaas oo loo diyaarinayo inay ka mid noqdaan sirdoonka booliska iyo hay'adda NISA saraakiisha booliska nabad sugidda ayaa sheegay in guulo wanaagsan ka soo hooyeen dhalinyaro dhowr boqol ah oo si tijaabo loogu hirgeliyay degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana ay wax badan ka bedeleen ammaanka caasimadda haddana muhiim ay tahay in la kordhiyo xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha ammaanka ayaa isku raacay in booliska loo sameeyo dhalinyaro sirdoon dharcad ah isla markaana la shaqeeya waxaana dhalinyaradaasi la sheegay inay noqon doonaan kuwa aqoon-yahana qaarkoodna ka soo baxeen dugsiyada sare ee dalka tala aruurin la sameeyay ayaa la isku raacay in xildhibaanada baarlamaanka la siiyo fursad ah inay dhalinyaradaas soo xulaan iyadoo looga digay inaysan keenin kuwa leh muqaadaraad iyo sidoo kale kuwa aan aqoon durugsan lahayn ama ugu yaraan dugsi sare ka soo bixin fursadan ayaa la sheegay inaysan wada heli doonin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya balse la siiyay kuwa u dhow xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Qatar ayaa si tijaabo ah barnaamijkan uga fulisay xafiiska hay'adda NISA waxaana la tilmaamay dhowr boqol oo ciidamo dharcad oo laga howlgeliyay caasimadda dalka in ammaanka wax badan ay ka bedeleen dawladda Qatar ayaa la sheegay inay bixi doonto tababarka iyo xuquuqaadka kale ee ciidamadan iyadoo loo soo mari doono xukuumadda Soomaaliya fursadan ayaa haddii ay dhaqan gasho waxa loo arkaa inay muhiim u tahay ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo mararka qaar martigelisa dalal qorshaysan iyo qarxid dad badan ay ku dhintaan dawladda Qatar ayaa la tilmaamay in si weyn ay u doonayso in lagu wareejiyo ama ay maalgeliso hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo dhawaan la kala diray laguna biiriyay booliska Soomaaliya ha yeeshee hadda waxa socda qorshe ku aadan in mar kale hay'addan dib loo howlgeliyo isla markaana la sameeyo ciidamo u badnaa doona kuwa dharcad ah oo ka qayb qaadan doona sugidda amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qorshahan laga damacsan yahay sugidda amniga Muqdisho ayaa ah mid la tijaabiyay isla markaana hay'adaha amniga iyo mas'uuliyiinta sare ee dawladdu isku raaceen in si degdeg ah loo dhaqan geliyo wahagaag daawadayaal wali qaybihii ugu horeeyay barnaamijkeena ku guda jirnaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa looga yeeray shir heerkiisu sareeyo ee lagu qabanayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana su'aalo ay ka taagan yihiin suurtagalnimada ka qaybgalka shirkaasi ee Soomaaliya waxaa lagu wadaa 10ka bishan July magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya inuu ka furmo shir heerkiisu sareeyo ee looga hadlayo la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada shirkan ayaa waxa ka qayb galaya xogayaha guud ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo xubno kale oo muhiim ah waxaana kamid ah wadamada lagu casuumay dawladda Soomaaliya oo kooxaha xagjiriintu ay ka jiraan Soomaaliya ayaan la ogeyn inay ka qayb gali doonto shirkan iyo in kale maadaama khilaaf siyaasadeed oo xooggan uu kala dhaxeeyo dawladda waddanka Kenya kaas oo ka dhashay arinta badda Soomaaliya oo Kenya muranka ay gelisay
dowladda federaalka ayaa dhowaan shaacisay shirarkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya in laga wareejinayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taas oo sabab u ahayd khilaafka labada dowladood. warqad ka soo baxday Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ayaa casuumaad loogu diray wadamo dhowr oo ay qayb ka yihiin kuwii ku yaala Geeska Afrika isla markaana Soomaaliya safka hore ay kaga jirto maadaama ay ka jiraan dhinacyada argagixisada oo inta badan looga hadlayo shirkani. qodobo kale oo dhowr ay inoo harsan oo ay ka mid yihiin Ra'iisul Wasaare Khayre oo qorshaysan filayn ahlu sunna ka bilaabay Dhuusamareeb iyo xukuumadda Muuse Biixi oo la kulmaysa cambaareynta ugu cusleed. sidoo kale dowladda federaalka ayaa 30 sano kadib ku guuleysatay hirgelinta qorshayaal muhiim ah dowladnimada balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay xabsiga dhigtay saraakiishii ugu badnaa oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo mas'uuliyiin kale. saraakiishan iyo mas'uuliyiinta xabsiga la dhigay waxaa lagu eedeeyay arrimo la xiriira musuqmaasuq. intooda badan waxaa la sheegay inay ka shaqeynayeen dekedda magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta canshuuraha. Cabdullaahi Xasan Bariise oo ah taliyaha hoggaanka laanta canshuuraha ayaa ka warbixiyay mas'uuliyiintan sababta loo xiray iyo waxay ahaayeen. hoggaanka baarista dambiyada CID ayaa wuxuu helay xog ku saabsan in muxuu ahay wax isdabamaris meeshaas ka jiro. waxaa la xiray marka saraakiil wasaaradda maaliyadda customka airportka joogtay iyo saraakiil ayaguna booliiska ahay oo ayaguna ku shaqo lahaa. kiiskaas baaristiisu waxay ka socotaa hoggaanka baarista dambiyada CID ayaa wada muxuu ahaa natiijada ka soo baxdana waxaa loo gudbin doonaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamadda awoodda u leh qaadista kiiskaas. ma suuragelayso mana dhici karayso mana laga aqbali karo qofkii masaakiinta ahaa ee aad ogtihiin hooyayaashiin iyo muxuu ahay yaayada ku gedaysa suuqa bakaaraha iyo wixii lamida oo ganacsi ku jira nooc kasta ha noqdaan miisaan kasta ha lahaadaan inta canshuur bixiyayaasha wixii ay ayagu lahaayeen intay ugu tala galeen in dawladda lagu cover gareeyo howlaha dawladda lagu socodsiiyo qarannimadina dib loogu soo celiyo in qof inta soo qaato lagu aaminay inuu jeebkiisa gashado oo asaga ku munaaficiido hay haatay ka tahay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxa uu ka bilaabay qorshaysan filayn ahlu sunna isla markaana soo degdegay. waxaa Dhuusamareeb laga bilaabay diiwaangelinta ciidamadii ahlu sunna oo dhawaan uu la wareegay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyadoo halkaas ay ku sugan yihiin taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyo guddi farsamo arrintan loo saaray. waxaa magaalada Dhuusamareeb kulan ku yeeshay saraakiil ka socday wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya iyo taliyaasha ciidamadii Ra'iisul Wasaare Khayre lagu wareejiyay iyagoo ka wada hadlay diiwaangelinta ciidamadan ahlu sunna farahooda ka baxay. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa qorshe culus u degay ahlu sunna kadib markii ay ogolaadeen in ciidamadooda ay ku wareejiyaan. waxaana uu si degdeg u bilaabay diiwaangelinta ciidamadan iyo inay ka mid noqdaan kuwa dowladda federaalka. arrintan ayaa yareyn doonta saameynta ahlu sunna ay ku lahaayeen gobollada dhexe ee Soomaaliya. waxaana ahlu sunno heshiis horey ula gashay dowladdii Xasan Sheikh oo noqday mid aan hirgelin kadib markii fulintiisu ay soo daahday. ha yeeshee Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu doonayaa heshiisyadan si degdeg ah in loo fuliyo iyadoo durba Dhuusamareeb arrintan ay ka dhaqan galayso. weli qodobo kale ayaa inoo harsan oo barnaamijka ku soo qaadan doona. ha yeeshee xukuumadda Muuse Biixi ee Somaliland cambaareyntii ugu adkaa ay la kulmaysaa kadib kalsooni darro iyo dulqaad la'aan lagu eedeeyay. warbixin ka soo baxday hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Amnesty International ayaa looga hadlay xaaladda ka sii darayda xorriyatul qowlka ee ka taagan Somaliland. hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa xukuumadda Muuse Biixi ku eedeysay dulqaad la'aan iyo xadgudub ka dhana xorriyadda hadalka si la mid ah beegsiga siyaasiyiinta ka aragti duwan xukuumadda hogaamiyo Muuse Biixi. agaasimaha hay'adda Amnesty International
ee bariga Afrika ayaa waxa uu sheegay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay xorriyadooda waayeen mas'uuliin ka tirsanaa Somaliland, saxafiyiin iyo sidoo kale dad ka hadla arrimaha xorriyatul qowlka. Xukuumadda Somaliland ayaa inta badan ku eedeysa dadka xabsiga dhigto inay ka soo horjeedaan jiritaanka Somaliland iyo inay ku kacaan falal amni darro walow aysan soo bandhigin faahfaahin dheeraad ah. Xildhibaan ka tirsan Somaliland ayaa dhowaan loo xiray fikirkiisa warbaahinta ka dhiibtay iyadoo Somaliland sheegtay inuu ka soo horjeedo madax bannaanida xukuumadda iskeed isku magacowday. Ugu dambeyn, hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay caburinta xarkagooska noqotay ee ka jirta deegaanada Somaliland, waxaana ay dalbatay xorriyadooda in la siiyo dad uu ka mid yahay suxufiga Cabdimaalig Muuse Coldoon. Ugu dambeyntiina, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa 30 sano kadib ku guuleysatay hirgelinta mid ka mid ah qorshayaasha xoojinaya dowladnimada dalka. Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa go'aan looga gaaray in dalka aysan ka dhoofi karin muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagoon qaadan kaarka caafimaadka oo 30 sano kadib la hirgeliyay. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta buuggan ay hirgeliyeen iyo sidoo kale qaabka loo qaadanayo. waxaan isku waafaqnay in ay gobolka Banaadir ay soo celiyaan buuggii dawladda hoose ay bixin jirtay xilligii dalka ay ka jirtay dawladda Soomaaliya. waxaad ogtihiin burburka kadib inaan la sameyn buug caafimaad oo aan ugu talagalnay inaan hadda aan buug caafimaad aan sameeyno. xajka kaliya ma aha, xajka waa ku bilaabanaa, laakiin wuxuu socon doonaa si caadi ah qof kasta oo Soomaali ah oo ka baxo aadan cadde international airport waxaa ku xiran oo waajib ku ah inuu qaato buugga caafimaadka. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo warqad aad ka daawanayseen mid la mid inta aynu ku kulmayna haddii oo aan leedmo nabadgelyo.